waxaan iskugu nimid markoowaad inaan uga mahadcelinno jaaliyadda ka soo jeeda degmada Dhabbad oo iskuulkan soo saacideeyay keenay laba macallin oo heer waxbarashadooda aad u sarreeyay oo Kenya wax soo bartay macallimiintaas marka wax weyn bay ka tareen waxbarashadii deegaanka Dhabbad wax weyn bay ka tareen runaantii aad iyo aad baan uga mahadcelinaa jaaliyadda si fiican bay wax uga qabteen laba marka shaqada waa qabteen marka koowaad iskuulka hoose dhexe ay maarta aad u tayeeyeen ilaa haddana wadaan sidoo kale waxay fureen waxbarashada dadka waaweyn oo magaalada dhexdeeda lagu baro meel macaada bay fureen waxbarashada dadka waaweyn iyo sidoo kale cilmiga kombiyuutarkana lagu barto aad iyo aad bay marka magaalada nolosheedii systemkeedii waxbarasho oo degmada Dhabbad aad awal u liitay bay wax badan ka bedeleen jaaliyadda marka oo ugu horeeyo Barre Sownax iyo rag badan oo ka mid yahay Saciid Cabdirujac ay ka mid yihiin Jaamac Buraale aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa dhammaan jaaliyadda sida wanaagsan oo ay wax uga qabteen arrinta waxbarashada ay iskugu xilqaameen oo ay waxbarashadaas ugu soo istaageen maanta Dhabbad deegaankii marka hore ay ku dhasheen ay kana tageen dibadaha ka aadeen nimankaas wax xasuustay oo ku talagalay waxbarashada maanta in wax laga qabto aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa Ilaahay ajri xasana ka siiyaan leenahay marka labaad waxaan rabnaa iyaga iyo jaaliyadda dhammaan deegaanka ka soo jeedaba inaan ka codsano baayada iskuulka walaalayaal inta waa ka badan tahay macallimiin laba macallin kaliya iskuulka ma garanaysaa awal macallimiin badan baa joogtay oo mushaar la'aan ah oo ma garanaysaa waqti badan soo dhigayay macallimiin kalena waa u baahan yahay waxaan marka codsanaynaa jaaliyaddu inta waa ka gudo weyn tahay dad deegaankan ka soo jeeda waxaan codsanaynaa marka jaaliyaddu inay gacmaha isqabsadaan oo arrinta waxbarashada deegaanka Dhabbadeed ay u soo istaagaan oo wax ka qabtaan oo ay waqti geliyaan baan codsanaynaa oo ay isku tagaan oo dhaqaale badan loo ururiyo iskuulka Dhabbadeed hadda iskuulka waqti badan bay wadeen nimankan jaaliyadda ah sanad hore waa wadeen xogaa lacagti baa ka kala go'day sanadkan hadday soo bilaabeen oo laba macallin ee maxaan ku yiraahdaa shaqaaleeyeen waxaan codsanaynaa marka in arrintu say u noqoto arrin joogto ah oo ayna u kala go'in in maarta jaaliyaduhu ay ku soo dhiiradaan oo ayagoo badan ay ka qayb qaataan oo ay maarta ay dhaqaalaha ku soo daraan jaaliyado badan baa jira in markaas loo soo wada jeesto maanta waxbarashada weeymeed deegaanka ka leeyahay horumarkuna waxbarashada ku jira marka waxaan codsanaynaa arrintaas in loo soo wada jeesto oo nimanka kaliya aan ma garanaysaa culayska la saarin oo ayagu kaligood ma wadi karaan waxay u baahan yihiin dadka deegaanka ka soo jeeda oo dhan in oo dibadaha jira iyo dalkaba inay isku xilqaabaan oo maarta waxbarashada ay gacmaha geestooda qabsadaan bay u baahan yihiin wasaaradda waxbarashadu maalin walba macallimiin bay keentaa maalin walba heerka federaal macallimiin baa ka soo baxa galmudug ku soo dhaca ama caabud waa ku soo dhaca macallimiintaas iskuulada cawda waa loo qaybshaa Dhabbad ma soo gaadho iskuuladeedana ma soo gaadho waxaan codsanaynaa arrintaas dawladda federaalku ama galmudug wixii mas'uul ah oo xaq darrada ka dhiidhinaya in arrintaas ma garanaysaa isku xilqaamaan oo wax ka qabtaan baan codsanaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa deegaankan waa deegaan ballaaran baahiyo badan ugu qaba deegaanka dadka u dhashay oo qurba joogta ah waxaan codsanaynaa inay magaalada u soo jeestaan oo ay nolosheeda magaalada wax ka qabtaan deegaanku deegaan magac dheer la weeyo waqti badan la deganaa aadna ma garanaysaa horumarkiisu uu gaaban yahay marka loo fiiriyo waqtiga uu jiro oo ku dhow 70 sano magaalo jidho oo maartay horumarkeedu uu aad u hooseeyo way waxbarashada hadda sanadkan waxa soo baxaysa ardadii aadi lahayd dugsiga sare magaaladu marka dugsi sare ma leh dugsiga sare waa dhisan yahay laakiin macallimiintii baan joogin labada macallin iyo macallimiintan kale hoos dhaxay dhigaan waxaan u baahanahay marka oo aan codsiga aan maanta iskugu nimid ugu daran macallimiintii waxaan rabnaa ardada halkan ka soo baxdaa waxaan rabnaa meeshii ay aadi lahayd in la helo haddii ardayga halkan ka soo baxaa dugsiga hoos dhexe ka soo baxaa uusan helin dugsigii sare uu aadahayay dawaad garan ka dhaan boqolkiiba 50 dadku 80 baan dhahay ma heli karaan waxbarasho ay ugu dirsan ilmahooda ama xamar ugu diraan ama gaalka ugu diraan ama caawda ugu diraan dugsiga sare ma heli karaan ilmihii qaabkii uu noolaan lahaa oo dhaqaalihii ku noolaan lahaa iyo lacagta waxbarashada ma wada heli karaan marka waxaan codsanaynaa in arrintaasna la xoojiyo oo jaaliyadaha deegaankan ka soo jeeda macallimiinta ay badiyaan si macallimiintu ay u dhigaan hoos dhexe markii ardaw ka soo baxo dugsiga sare ardayga in uu aado aad iyo aad baan arrintaas u soo dhaweynaynaa una codsanaynaa waxaan salaam bacdigeed meeshan waa iskuulka Tawfiiq Dhabbadeed waxaan maanta ka hadlaynaa waxbarashada Dhabbadeed waxaan ka codsanaynaa jaaliyadda
meeshaan arday tira badan oo ilaa 500 gaaraysa ayaa dhigata macallimiintooduna waa yadha waa laba nin kaliya labada macallin baa egees fadhiday way wixii kale oo wax ka qaadi jiray mushaariyaad loo waayay waxaan doonaynaa adduunka ka doonaynaa shaariyaha dibadda iyo dadka ku taxalluqa oo deeq-bixiyaasha inay arrintaasi degdeg ah wax uga qabtaan kuwaan macallimiintaana hadda waa dhigaan kuwii hore bilaa mushaar la'aan bay wax ku wadi jireen haddana waa mushaar la'yiin diyaas baraha beesha dhabbadeen waxaan ku bogaadinaynaa horta inta isqaantay oo hadda wax wada waa bogaadinaynaa waxaa dhabbad u baahan tahay waa 12 macallin ama 13 70,000 idinkoo ah miyaad xallin weydeen 12 macallin oo hoose dhexe sare ah kuwa kale macallimiinta waa 5 mushaar ma qaataan labadan macallin oo hadda la keenay wax badan bay kordhiyeen ama waxbarashadii bay kor u qaadeen ama magaaladii dadka waaweyn bay haddii la ku rooyay ka bayuutarka iyo qayb hameenka iyo haybaraan waa ku mahadsantii inta ka shaqaysay waxaan leenahay inta kale ku dayda naga qaada kuwa kale tayarana noo soo dira baan inta kale leenahay inta hadda shaqada wada ma intiina kale waayo 6 macallin maamulahooda mushaar male waxaan leenahay arrintaas dhab uga shira dhab iskaga warayst waxaan rabnaa dugsi hoose dhexe waa haynaa kuwa dhiga mushaar inay helaan waa codsi dugsi sare waa noo dhisay macallinkii kale ah yaa naga xayiran ayadana noo fuliya baan walaalayaal idin leenahay waxaa soo haray dowladda Soomaaliya wasaaradda waxbarashada waxaan ka codsanaynaa wasaaradda waxbarashada ee Galmudug wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka xaqqa waxaan u leenahay oo xagga waxbarashada ayaan ka helno intaas waxaan ku darayaa dadka qurbo joogta oo Maxamed Amaan Reer oo degmada Dhabbad u dhashay waxay noo keeneen macallimiin tayo leh oo iskuulka dhiga hoose dhexe way ku mahadsan yihiin shaqada qabteen oo iskuulka oo macallimiinta inoo keeneen laba macallin bay noo ku siiyadeen oo la macallimiin hore dhigi jiray iskuulka oo ayagu laftigooda jooga oo mushaar la'aan ku dhigi jiray waxaan ka codsanaynaa inay macallimiinta noo siyaadiyaan kuwii hore oo dhigi jireen ay mushaarka u siyaadiyaan baan ka codsanaynaa qurbo joogta kuwii isha isku xilqaamay kuwa kalena waxaa leenahay ku dabadayda way ku dabadayda leenahay oo iskuulka arday noo siyaadiya macallimiinta iyo isheeg iyo waxbarashada dhammaantood macallimiinta hadda ay noo yimid oo labada xabaana way mahadsan yihiin mid waxbarasho iyo midaan waxbixinba waa mahadsan yihiin waxaanu ka codsanaynaa in aad noo kordhisaan wixii aad noo bilowdeen oo ahaa ardadii macallimiintii qaarna haddii mushaari weeye qaarna mushaari ma ahan marka sidaa darteed waxaanu rabnaa qurbo joogay in aad noo kordhisaan waxa aad noo bilowdeen oo ah khayraadka iyo wanaagga ah oo aakhiriya adduunba ajar aad ka helaysaan dadka macallimiinta tayaysan oo labada aad noo keenteen kuwa la mida oo dugsi sare iyo mid dhaxaba waxbara baanu rabnaa dugsigii sare ma leh dad waxbara ardadiina waa joogtaa hoose dhexana mushaar raggii qaar ma qaato intaasoo sanana waa soo wadeen oo waad ogtihiin inta magaaladaasi ay dhisnayd iskuulkaasi waa furaa marka waxaanu ka codsanaynaa in aad arrintaas wax ka qabataan degmada Dhabbadeed waxay ka tirsan tahay deegaanka degmooyinka Galmudug waxaan la hadlaynaa wasaaradda waxbarashada ee Galmudug iyo tan federaalkaba xuquuqdii aynu lahayn ma hayno ilaa iyo intii dawladda dhisnayd iyo tii ka horeysay midna waxaan codsanaynaa marka maadaama aan nahay dadka xuquuqda ku leh dawladda inaanu ka helno xuquuqda aan ku lahayn taas waa ka codsanaynaa anigoo ku hadlaya magaca waalidiinta magacaygu waa Simsam Shacabdi Xirsi maanta iskuulka aan joognaa waa iskuulka Tawfiiq anigoo waxaan la hadlayaa dhalinyaradii iskuulkan garatay inay tayeyso noona soo dirtay labada macallin
macallin farxaan iyo macallin qaliif macallimiinta iskuulka tayo fiican bay ku kordhiyeen way sarana way u qaadeen waxbarashadiisa iyo dhaqdhaqaaqa iskuulka waxaan ka dareemaynaa inuu iskuulku uu yahay iskuul arday macallimiin fiican ay timid ardaydana waxaan ka dareemaynaa in macallimiin fiican u timid waxa weeye markasto ay qurba joogtu ay maaragta u hawlgalaan inay macallimiin keenaanna waa laga dareemaa way ku mahadsan yihiin walaalahayo waan uga mahadcelinaynaa waxaan halkan noogu yimid laba macallin oo tayeysan macallimiintii horena caruurta way noo dhiseenoo ayaga laftirkoodu maadigii ay markaa dhigayeen way taageen ayagu oon ku qaadanayn qarash labadan macallinna ayaguna waxbarashada iyo nadaafadda iyo ardayga waqtigiisa intaba way kontarooleen wayna ku mahadsan yihiin waa kusoo dhaweynaynaa adinkuna khayr allah idin siiyo garashada aad garateen inaad qalinka noo tayeysaan oo naga bixisaan ilaahigiina siiyey wiilashayda dibadda jiro oon xasuustay oo bokod manigooda noogu soo qarashgareeyay macallimiin oo noo soo diray oo jahliga naga saaray ilaahay baa mahadsi leh nimankaas waxaan leeyahay faatixada oo maroo duceeyo anaguna waa u duceeyna khayr allah siiyo waxaan ka rajeynaa inay sii wadaan oo kor noo qaadaan waxa weeye ardada hadda meesha noo joogta aniga hadda dhowr iyo 10 arday baa dhigata qaarna waa ka baxeen qaarkii ka baxay gobolada kale markaan geynay markii arday la itixaamay war xagee ka timaadeen dhabad ay dhaheen aqoontooda arkeen waa farxeen yaana gaarsiiyay kuwa dhoodhiga haya iyo kuwa qurbaha hadda ka hor macallimiinta noo soo diray iyo kuwaasan baana gaarsiiyay heerkan maanta aan marayno ilaahay baa horta mahadli waxaan u celinaynaa walaalaha iyo qurbaha jooga noo soo diray macallimiintan oo dakhligooda ku soo baxsho oo nagu talagalay inay naga qaadaan jahliga oo na tusaan dadka nala midka annaga galmudugna wax nama siiso qolooyin kale wax nama siiya dadka yaga isku dhex ceshanaa wiilasheeda ilaahay dadka yaga nooga soo qaada waxaan taas mahad ugu celinayaa walaalayaal khayr allah ina siiyo wixiina wax baraka Allah ka dhigo dad iyo dunyaba Allah irsiq waasacayna siiyo waa noo jeedana meesha naga qaada walaalayaal waa mahadsantihiin maadaama sidaas ku soo qaadeen oo nagu keenteen macallimiinta waxbarashada wax dhan ayaad noo qabateen hadda ka hor aad ayaan u jecelnahay macallimiinta hore oo mushaariga ahaa sidii ayagoo mushaar la'aan ayay wax noogu qabanayeen wax noo dhigahayeen walaalahay waxaan u sheegaynaa macallimiinta horena hanal ku tayeeyo qalbada ayaa wax laga baraa ayagoo ma xumayn inta wax soo wadeen kuwaan noo keenteena sidoo kale inaad noogu abaabushaan oo aan noo keentaan wasaaradda waxbarashada iyada codsi baan u dhiibanaynaa inayna soo gaarsiiso waa degmada dhabadeed aqoonteeda inay kordhiso oo na soo gaarsiiso mushaarka heer federaal wasaaradda waxbarashada anoo ku hadlahaya afka macallimiinta iskoolka tawfiiq ee degmada dhabadeed waxaan idiin sheegayaa wiilasha qurbaha ee beesha wagardhaceed anigu waxaan ka mid ahaa macallimiintii hore ee iskoolkan dhigi jirtay iskoolkan waxaan bilownay 2011 ayaan meeshan ka bilownay 9 sano miya ama 8 sano ma ogi baan qalinka soo haynay aan jeesta soo haynay oo aan halkaan baan ku dhigaynay iskoolka intaas farantiyeer baan ku dhigaynay waxaan ugu kaalmaysay hay'adda Save the Children oo na sii jirtay xoogaa farxal ah waxa la yiraahdo qolo kale oo aan taa kula ka helnayna ma ay jirto haday ahaato federaalka haday tahay galmudug qolo aan ka helnay waxa la yiraahdaa kulana ma ay jirto qurbaha beesha wagardhaceed marbay waxay noo qaadeen 3 macallin iyaguna markay bila taakuleeyeen bay waxood maaragtay meel si wax ka noqdeen ma naqaano ma ayagii baa maaragtay wax waayay ma si kale ay wax noqdeen ma ogi halkaas ayay maaragtay ayagiina ay ku sheeqday arintoodii hadda 2 macallin baa noo keenay insha Allah taala waxaanu leenahay macallimiintaas oo sameysay wax la yiraahdo kor u qaadida degmada waxbarashada haday tahay dugsiga hoose dhexe haday tahay waxbarashada dadka waaweyn bareefadiya ayay ka fureen kombiyuutar ayay fureen waxa la yiraahdo waan uga mahad celinaynaa insha Allah taala khayr Allah idin siiyo jazakallahu khayr baanu leenahay waxaanu codsanaynaa marka taas waa iga midaas waxaanu codsanaynaa marka oo na ka codsanaynaa wiilasha beesha wagardhaceed intaas anagoo ka soo garaacaynay jeesta boor badan aan haynay intaasna aan ka helin dawlad haday tahay iyo galmudug haday tahay wax mushaar aan ka helin waxaanu idinka codsanaynaa wiilasha beesha wagardhaceed inaad nagu soo kaalmaysaan intaas dadkii soo xarbinayay oo frontierka ku shaqaynayay inaad
wax naga soo gaarsiisaan awoodda aad leedihiin ilaahay baa awood leh balse haddii aad awoodaan weeye isku taga naga tashada oo nagu tashada haddaad awood noo haysaan waxaanu leenahay noo soo kordhiya oo kaalmo noo soo dira macallimiintaad noo soo deenaan oo mushaarayseena waa idinkaga mahad celinaynaa